inkastoo wasaaradda badan ay qayb ka qaadanayeen haddana wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqada ugu badan qabatay juhdigaas la geliyey hirgelintiisa mid ka weyn ayaa na sugayso dabcan dhibka laga maray in la diyaariyo barnaamijkan waxaa ka dhib badan hirgelintiisa laakiin haddii la hirgeliyo wuxuu muhiim u noqon doonaa dalkii inuu xasilo ayaa laga maarmaan uu yahay deegaanada marka la xoreeyo waxaa muhiim ah dadki inay dareemaan isbeddel inay ka raystaan dadka laga xoreeyay ayaa muhiim ah deegaanada qaar baa 15 sano wax caafimaad aan helin 15 sano wax maaragtay waxbarasho aan helin wax garsoor aan helin marka meeshii marka la qabto adeegii caafimaad waxbarasho garsoor wixii oo dhan oo dhameystiran ayay u baahan tahay fursado shaqo wixii hadda nolol jeedinayo oo dhan ay u baahan tahay haddii marka intaas la helana nabadda way xoogaysanaysaa dadkii dowladnimada ay jeclaanayaan ayagaa difaacanaya ayagaa ilaashanaya salka ayna dhiganaysaa intaas haddii ay naga waayaanna waxaa dhici karto in la yidhaahdo kuwii na haystay iyo ayagaba waxba isma dhaamaan oo markaas taageero shacabka laga waayo inay dowladdii la saftaan laga waayo ayaa dhici karto marka barnaamijka horta muhiimadaas ayuu leeyahay waa ku mahadsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirkeeda oo hormuud u ah soo diyaarinta barnaamijkan aad ay u mahadsan yihiin insha allahu tacaala annagana hirgelintiisa gacan ayaan ka geysan doonaa wixii nooga aadan aad baa mahadsantihiin